مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر وحالكني lagu tukanayaa waa salaatul ciid al-fitr iyo magaalada Oslo ee cariga caasimadda dalka Norway waxa aan nagala socotaa waa webka caalamiga ah oo soo sheegnayay magaalada Oslo waa ciid al-fitr 2015 raacan tukanaya aad arkaysana waa raaci saddexaad ee salaada la tujiyo iyadoo oo Soomaalida halkan ku sugan ay aad iyo aad u fara badan tahay marba la tujinayo raaca imaada الله أكبر الله أكبر الله أكبر halkani waxaa dhinacayga taagan waa gudoomiyaha jaaliyadda Norway ee Somaliland mudane Cali Saleebaan Maxamed Cali ku soo dhawow waxaan filayaa waxaad soo gudatay salaatul ciid al-fitr oo ahay raaci labaad halkan maanta maxaad ka oranaysaa shacabka daawanaya ku soo dhawow wax sheegnayso ما سنتهي صديق بسم الله الرحمن الرحيم شعبك إسلام كامل كستوى جوغان وحليه عيد مبارك كارهان مدة صوماليات وحليه عيد إلهي برشي برواقها نوو قارسيو waxaan kale ah kan ka salaamayaa wax muuqayga iyo magacayga bagaranaysa karana waxa aad iyo salaamayaa family-ga ay hooyo aabbahay ugu horeeyaan waa iyo walaalayaal beerka xaaskaygii carruurtaydii waxaan kale salaamayaa carruurtan waxay waalidka waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahayna ciideeda ilaahay hayna gaarsiiyo aad iyo aad bad gudoomiye u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda reer Somaliland ee dalka Norway Cali Saleebaan Maxamed waxaan ku sugannahay waxa weeyaan garoonkii lagu gutay salaatul ciid al-fitr ku soo dhawow halkan adigoo kelmadaada dhiibanaya aad ka salaamaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي والحمد إبراهيم جامع برواني waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka reer Somaliland dhammaan horta marka ugu horeysa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Somaliland waxaan kaloo halkan ka salaamayaa saddexda gol qaran madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada dhammaan family-ga iyo asxaabtayda adiguna waa salaamantaada Sadiq aad iyo aad baan ku salaamayaa walaal aniguna ciid mubaarak baan ku leeyahay kullu caam wa anta bil khayr hadda waxa ay qoladani soo gudatay waa raaci saddexaad ee salaatul ciid al-fitr iyo magaalada Oslo gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Norway ee reer Somaliland khadar ku soo dhawow adigoo kelmadaada dhiibanaya soo dhawaystay dhammaan waxa salaamay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin ciid mubaarak gaar ahaan inta Hargeysa ku nool عائلة فامليga cid kasta wax leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair anaguna waxaan ku leeyahay kullu caam wa antum bikhair adeero ilma khadar maxaad maanta oranaysaa adigu ciid wanaagsan ciid mubaarak leh ciid mubaarak baan dilay salaamaysaa adeero adna ya adeero ciid mubaarak adeero ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaad ay dadkani soo guteen waa salaatul ciid al-fitr iyo magaalada Oslo ayay ku sugan yihiin iyo garoonka Follaringa oo lagu gutay salaatul ciid al-fitr
kusoo dhawow waxsan sheeg news adigoo ka faa'iidaysanaya kelmaddaada iyo halkan ka salaamaysaa maanta ciid mubaarak waxaan ka salaamayaa akhyaarta soomaalida walaalahay muslimiinta meel kasoo joogaan waxaan kaloo salaamayaa familigayga walaalahay oo fasax u maqaan UK familiga degan Sweden Norway Denmark iyo asxaabaday oo fasaxyada dheer ku maqan adduunka magacaagana amiin amiin aad baan lagula waxaan ku leenahay ciid mubaarak aad iyo aad baad mahadsantahay waxaanu ku sugan lahay waa garoonkii lagu gutay salaatul ciid alfitri iyo magaalada Oslo ee xarunta dalka Norway halka nagala socotaana waa webka caalamiga ah ee waxsan sheeg news iyo magaalada Oslo halkan horteeda waxa soo socda xildhibaanka weyn xildhibaan Baasha Muuse oo ku sugan garoonkii lagu gutay salaatul ciid alfitri magaalada Oslo oo la yiraahdo Folleringa xildhibaan Baasha ku soo dhaw waxsan sheeg news assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak bahda waxsan sheeg news runtii farxad gaar ah bay maanta ii tahay garoonkan aynu maanta joogno oo ciidii ay ugu dabaaldegayaan ama ku xusayaan shacabka Soomaaliyeed ee degan magaaladan Oslo iyo dibadahaba runtii farxad gaar ah ayay maanta ii tahay inaan ciidan ka qayb qaato iyadoo ay dad lagu qiyaasay ilaa 2000 iyo 3000 inta u dhaxaysa ay maanta ciidda tukadeen laba qaybood loo tukaday waa runtii wax lagu farxo waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga rajaynayaa dadkii Soomaaliyeed ee soo soomay in Ilaahay soonkoodii ka aqbalo Ilaahay inuu shaafiyo kuwa xanuunsanaya kuwa caruurta laga qaaday Ilaahay inuu caruurtooda u soo celiyo kuwa aan sharciga lahayn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu sharciga u soo dedejiyo bahda waxaan sheegnay oo mar walba la garab taagan shacabka Soomaaliyeed ee qurba joogta war dheeli tiran oo tafatiran waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantiin ilaahayna idinkana khayr idinkala kulan siiyo dadaalkiina jazaakumullahu khayr annaguna aad iyo aad baan ku leenahay ciid mubaarak adigoo xildhibaan dadka wax fara badan oo qabtay Baasha Muuse aad iyo aad baan ku salaamanaa ciid wanaagsan kullu caam wa anta bilkhayr baan ku leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa anta bilkhayr حياك الله sheekh ku soo dhawow webka caalamiga waxsan sheeg news adoo kelmaddaada dhiibanaya halka ka salaamaysaa salaatul ciid alfitri إن شاء الله ما ورقة هذا بعد كيف جيون أخري وفوق هذا قالوا عن سده قفك حري بس قفك أصبح بس حري صدق سنة دول التناشاء وشركة صدق سنة دول بلغنا هي عائلتنا كبرى كيف 4 أنا بكتب ثم هؤلاء دنيا ku soo dhawow waxsan sheeg news adigoo ka faa'iidaysanaya waxsan sheeg news أحسن شيء ما شاء الله وأحسن شيء وأهم بلياننا مركو قهرس خير الله بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ciid mubaarak aan leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo luqadda aan ku hadlayo ku hadasha meel kasta ay degan tahayba ma sha Allah ilaahay maaragtay ka aqbalo soonkoodii iyo salaadoodii taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal ciid mubaarak aan leeyahay waxaan kala soo hadlaynaa magaalada Oslo waddanka Norway halkan waxaa ku ciiday maanta dad fara badan ilaahay ha ka aqbalo salaadooda laakiin meeshaan markaan ku kala tagno oo aan magaalada galno magaaladu waa iska magaaladeedii laga dareemi maayo dadka dhulka islaamka degan gaar ahaan dhulkii aan ka nimid degan ayaga laga bilaabo xalay ilaa qorraxu ka dhaco maanta ciid bay u tahay waa laga dareemayaa suuqi baa laga dareemayaa jidadka laga dareemayaa marka nasiibkaas inaad haysataan ogaada annaguna waxaan idin leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadka meeshaan joogan ku dhowro kuwa ilmaha laga haystana ilmahooda ilaahay u soo celiyo kuwa waddankii joogan ilaahay uu nabad siiyo ogaadana ummadda Soomaaliyeed oo maqlaysay dhulkii ilow baan u qabnaa insha Allah waxaan naga soo kaxeeyay waa nabad la'aan iyo shaqo la'aan ma ogiin inaan wax la dhaafsado inuusan lahayn dhulkeenni marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay qof walba qalbiga ku hayo dhulkiisa dhul aadan lahayn waa dareen ku joog assalaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام حياك الله نقول عيد مبارك كلنا السلام عليكم عيد مبارك كل عام وانتم بخير كل سنه وذوك المده هذا كيف يدسنيا هو محمد تنوه عيد وناكس ما شاء الله عيد مبارك سلام يوم الاسلام كودن
marka xiga waalidkay walaaladay faamilkii marka xiga waxaan salaamayaa dadka muslimiinta wixii magacaygii muddo garan xasan calaykum salaam guda yaa salaamaysa adeero abo ciid mubarak adeero ma sha Allah يا محمد أنا أقول واحد كلنا ذيك يعرف هذا عيد مبارك كل عام وأنت بالخير جزاك الله نعم تقول له وحسن شيخ نيوس كلمة عيد هذوك في هذه السنة هلك سلام يسا هلك واحد السلام يا دمان ومد المسلمين تعمل كستي شوقان كاره واحد السلام يا حاس كي جسين إبراهيم محمد يا عروب تيدا وياضي دمان ومد المسلمين تعمل كستي شوقان أنا أقول لك السلام عليكم نحن كلنا هاي عيد ونكسن كل عام وأنت بالخير أدرى يا سلام يسألك يتكذوك في هذه السنة كلمة هذا عيد مبارك مقعة ما هذا يو محمود هذا نعدد أوكي ما شاء الله ولي waxaanu ku sugan lahay waa garoonkii lagu tukaday ciidul fitriga iyo magaalada Oslo halkan waxaa wali dadkii oo faraxsan oo ka soo baxay salaadii ciidda ayaa ku sugan تفضل كسو لو احسن شقنيس شيخ عبد الرحمن شينه كسو لو وحسن شقنيس هذو كفايديسنه كلمه صلاه العيد يا ذلك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل عام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خير أصلو مسلمين تشوكتا iyo caalamka oo dhan oo salaameyna تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ما شاء الله إن شاء الله تعالى ودي تهنئة لنا مناسبة عيد الفطر إن شاء الله تعالى أنا أقول نحن كلنا هي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير أيضا كل سلام على الشيخ عبد الرحمن شينه وكل سجن مجالات أصلو حرون تدلك النرويج والجرون كله قلت كذا اللي قلنا قلت صلاة عيد الفطر هي مجالات أصلو الله بدك كن يشان يطمن وحى أنا جلست عدتنا ووقع عالمي جا وحشان جا نيوز أيضا كل سلام على الشيخ عبد الرحمن السلام عليكم حسن وعليكم السلام حسن كسول وحسن شقنيس أضو كفاية سريع كلمة صلاة العيد السلام يسعد ما شاء الله السلام عليكم الله من أضمن كل سلام الله عليكم